magaalada Wardheer ee xarunta gobolka Doolo waxaa ka qabsoomay xafiiska maxkamadda sare ee shareecada arrimaha Islaamka ee gobolka kulan looga hadlayay dardargelinta howlaha shaqo iyo shaqo ku soo laabashada garsoorayaasha kala duwan ee ka howlgala gobolkan Doolo. Kulankan ayaa waxaa furay isla markaasina shir gudoominayay gudoomiyaha maxkamadda shareecada sare ee arrimaha Islaamka ee gobolka Doolo mudane Cabdixakiin Sheekh Maxamed ayaa garsoorayaasha kala duwan kula dardaarmay in shaqada la dardargeliyo si cadaalad iyo sinaan ay ku dheehan tahayna bulshada loogu garsooro sanadkan cusub ee 2018 waa tirsi taariikheedka dalka Itoobiya si uu u noqdo markaasi shaqo ahaan mid ka duwan sanadihii hore ee lasoo dhaafay ayaa la wadaagay garsoorayaasha kala duwan ee guud ahaanba degmooyinka gobolka Doolo qorshayaasha sanadka cusub ee sanad miisaaniyaedka 2018 tirsiga dalka iyo jihooyinka shaqo ee sanadkan looga baahan yahay garsoorayaasha. Ugu dambeyn gudoomiyaha maxkamadda shareecada ayaa u soo jeediyay garsoorayaasha kala duwan ee ka howlgala degmooyinka gobolka Doolo hirgelinta qodobada hoos ku xusan sida kor u qaadida tayada garsoorayaasha iyo adeeg bixinta bulshada, wacyigelinta dhaqamada xunxun iyo ka fogaanshaha waxyaabaha khilaafka keena ee bulshada dhexdeeda marka qaar ka dhaca, iyo sidoo kale ilaalinta saacadaha shaqada iyo waliba xuquuqda shacabka. waxaana hadaladiisi ka mid ah maxkamadda shareecada ee gobolka Doolo maanta ay taariikhdu tahay bisha maskaram 5teeda waxaa furmaya insha Allah sanadkii shaqada 2018 saadarteed maanta waxaan halkan isugu nimaadnay shaqaalaha maxkamadda shareecada gobolka iyo shaqaalaha maxkamadda shareecada ee degmada Wardheer oo halkan shir ku galnay shirkaas oo ku saabsanaa furitaanka sanadkan cusub ee 2018 maxkamadda shareecada maadaama bilii fasaxa ay dhamaadeen in dib loo furo saadarteed marka insha Allah waxaan ku qaadanay qodobo dhowr ah in insha Allah sanadkan aan dardargelino. waxaa insha Allah ku ka ahaa in aan kor u qaadno tayada garsoorka iyo adeeg bixinta. tayada garsoorka markaan leenahay qofku laba meelood labadaba inuu aad maartay active uga noqdo laga maarmaan. xagga shareecada qofku in uu mar walba uu kor u sii kaco oo wixii ka dhiman uu dhamaystirto oo uu diinta maartay laga dhargo barashadeeduna runtii ma dhamaato inay kor u qaadaan xagga barashada diinta kor loo qaado iyo dhinaca kale oo xagga nidaamka madaniga iyo geedi socodka kiisaskana insha Allah in kor loo qaado. taas insha Allah qodobka maartay qodobada ay kamid ahaayeen waxaa kamid ahaa insha Allah in aan runtii kor u qaadno maxaan ku dhahday adeeg bixinta haddaan noqoto xagga ilaalinta saacadaha shaqada hadday noqoto xagga cadaalad iyo hufnaanta hadday noqoto insha Allah xilligii loogu talagalay kiis walbaaba insha Allah inuu ku soo gabagaboobo in aan iyana insha Allah aan kor u qaadno. sadogtihiin walaalayaal maxkamadda shareecada si guud isbedelkii kadib kor bay u socotay isbedelkii intuusan dhicin ka hor wadogtihiin oo maxkamadaha shareecadu runtii magac ahaan bay u jireen waxaa yeelay maxkamadda kale ee dastuuriga ay hoostigi jireen hadday qiimeynta iyada hoostigi jirtay warbixin hadday tahay iyada hoostigi jirtay magacaabis hadday tahay iyada hoostigi jirtay meel ay gaar u leeyihiin oo deganaayeen ma jirin hataa maxkamadda heer deegaan kiri ku jirtay maxkamadda heer deegaan hataa kiri ku jirtay saadarteed isbedelkii kadib runtii maxkamaduhu waxay heleen madax banaani bayaanka 192